calanka.com xaaladaha guud oo guud ahaan Soomaaliya saameynta ku yeelan بس كل دول أروح كنا بس Welcome in. The signing of today is very significant for African Union, but also AMSOM, who are on the ground in Somalia, to provide as our mandate a conducive environment for the Somali people themselves to negotiate. dhammaan inay waxaasoo dhan niyad sami ay ku saleysnaayeen waxaa daliil u ah inaan maanta soo gaarnay haddii aanay niyad sami ku samaysnayn oo ay lugooyo iyo xumaan iyo maxaan ku rahaa qaybin dadka la qaybinaya ay ku jirtay dadaaladaas isqabqabsigaas iyo doodahaas muddada dheer soo socday maanta ma aynaan soo gaari lahayn calaamadda maanta waxay daliil u tahay dadaalkii soo socday oo dhan inuu niyad sami iyo wanaag uu ku saleysnaa. The agreement you are signing today is an achievement for the entire Somali people. bogaadin oo uga bogaadinayaa madaxweynaha waa arrin gundhiga oo cadeynaysa in ay diyaar u tahay inay arrintan idinku galab gasho. It is absolutely key that interim regional administration be set up by the end of the year if we want to bring the country to election in 2016. Hence the importance of this agreement. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. We have formed this administration, and from day one we have been calling the federal government of Somalia and the international community to accept and recognize this administration. And finally we have reached that agreement today. We have reached an interim administration agreement with the United Nations, with the Somali government, and as well as supported by the whole international community, as you have witnessed today. Today is a historic day, and I am really happy to be part of this historic day. And it will be written again and again the day we started negotiation peacefully without shedding a blood. waxay tahay oo maamulka aan uga tanaasulnay labadeena dhinacba ummadeena dhimanayso oo baaba'ayso in dhibaatada laga bixiyo waxaan kaloo u tanaasulnay wax konkureeda oo ay dawladda ogasho oo isku raacsay beesha caalamka ay taageerayso in uu noqdo maamulkeena maamulka kale ee IGA oo dawladdan hore u aqoonsatay beesha caalamkana ay u aqoonsatay asagana xuquuqda aan ku leenahay deegaanaan inaan ka helno. calanka.com